الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن داوديال كسو دوادا وركا ظهورنمية تلفزيونka qaranka Soomaaliland warka hadii alla idmo waxaad la socodsiinayaan anigoo ah Yaxya Muuse Ibrahim Yaxya Nairobi taliyaha ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xariga ka taray xarunta ciidanka dabdamiska ee ku taala degmadaasi munaasabaddan oo ahayd mid si heersaran loo soo agaasimay ayaa waxa ahayd mid xariga lagaga jiriyay xarunta cusub ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland ee degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa dhismahan xarunta ciidanka dabdamiska ee degmada Maxamed Mooge ayaa waxa uu ku dhismay si iskaashi ah oo ay ka qayb qaateen bulshada degmada Maxamed Mooge dowladda hoose caasimadda Hargeysa iyo xukuumadda Soomaaliland waxaana munaasabadda xariga lagaga jiriyay goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka xigeenka wasaaradda duulista hawada gudoomiyaha gobolka Maroodijeex maayirka caasimadda Hargeysa iyo taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland gudiyada horumarinta ee degmada Maxamed Mooge mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo lagu soo martiqaaday iyo xildhibaano kamid ah golaha wakiilada iyo deegaanka caasimadda Hargeysa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland Sariye Guuto Axmed Sawaaxili ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhismaha xaruntan degmada Maxamed Mooge ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland isagoo sheegay in ay tahay xaruntii shanaad ee laga hirgeliyo caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxaan ku soo dhaweynaynaa xafladan maanta oo bishu shan tahay bishii afraad 2026 oo maanta aynu ku farxayno aynu dabaaldegayno oo aynu furi doono xaruntii shanaad ee Hargeysa yeelan doonto oo ah xarunta Maxamed Mooge degmada Maxamed Mooge maalintii ugu horeysay ee guddidu imaneen ay weydiisaneen lahayn Maxamed Mooge dabdamiska uga baahanay waxaan ku yiri waan cariyay waxaan ku yiri jagadi ma keenaysan haa bay yiraahdeen dhismi ma dhisanaysan haa bay yiraahdeen anna waxaad igu hadlaysaan in laba baabuur iyo 20 ciidanka dabdamiska inaan keeno waxa halkaasi ka hadlay gudiyada horumarinta degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa iyagoo ku dheeraaday isla markaasina u mahadceliyay dadweynihii ka qayb qaatay hirgelinta dhismaha xarunta cusub ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland ee degmada Maxamed Mooge waxayna ammaaneen isla markaasina u duceeyeen dadweynaha iyo ganacsatada bixiyay lacagtii lagu dhisay xaruntan xildhibaano kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa iyaguna sheegay in ay garab taagan yihiin horumarinta degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha degmada Maxamed Mooge ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan aad ugu mahadnaqaynaa qof kasta oo ka geystay dabdamiska gacan maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa waxa uu sheegay fariimihii kala duwanaa ay soo jeediyeen gudiyada horumarinta degmada Maxamed Mooge uu gaarsiin doono madaxweynaha Soomaaliland isla markaana uu diyaar u yahay in uu ka qayb qaato horumarka degmada Maxamed Mooge fariinta la faray xawada dheerayn maaye marka la idin hadli doonaa fariinta la faray anigu waan ballan qaadaya madaxweynaha gaarsiinaya waa ballan dhulka wixii xukuumadii naga horeeyay bixiyeen ee muwaadin inagoo kale inankeeniya la siiyey ee xoolihiisa ku maqayn oo xaajo kale adna kama qaadi kartid xoolihiisa warqadana waa haystaa laakiin waxa talaa wixii meesha ku haray soo inta imaad farin in ummadda jaamacadeedii iyo iskuulkeedii iyo saldhigeedii waxay u baahnid in looga dhigo madaxweynaha intaa gaarsiibaada tiri soo maaha haddii dowladda hoose hayn lahayd aan la hadlay laakiin dee wax xero ciidan oo dowladda hayso dowladda dhaxay noo hayso wasiir kale waan u hambaynaya anu waan gaarsiinaya balasaabka gobolka Maroodijeex ayaa wuxuu hambaliyo iyo bogaadinba u diray gudiyada kala duwan ee ka qayb qaatay dhismaha xarunta ciidamada dabdamiska waxa kale oo isaguna aad u hambalyeynaya dadweynaha reer Maxamed Mooge oo iyaguna laf dhabar arrinta ka ahaa
ayaana aad u hambalyaynayaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana ay sheegeen in ka xukuumad ahaan ay doorkooda qaadanayaan horumarinta degmada Maxamed Mooge. odayaasha waaweyn ee degmada Maxamed Mooge runtii waa wada samafalayaal sida u dhan yihiin hablaha waxa kale halkan doonayaan ka xuso annagu xukuumad ahaan qaybteedii ay noo soo bandhigeen guddida degmada ee bulshada degmada ku nool guddida ay noo soo bandhigeen waanu dhignay waananu ka qayb qaadanay waxaananu diyaar u nahay horumar kasta oo degmada laga fulinayo iyana saas oo kale inaan ka qayb qaadano diyaar baanuna insha allahu tacaala xukuumaddu diyaar bay u tahay wixii lagu soo qaybiyo sida xaruntaba ay uga qayb qaadatay inay ka qayb qaadato diyaar bay u tahay. cuqaasha iyo waxgaradka gobolada Salal iyo Awdal ayaa maanta warbaahinta waxa ay kula hadleen magaalada Gaarisa waxaana ay si cad u muujiyeen mowqifkooda ku aadan xasilinta goboladaasi. cuqaasha iyo waxgaradka gobolada Awdal iyo Salal oo maanta magaalada Gaarisa ee gobolka Awdal kula hadlay warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa si cad u muujiyay mowqifkooda ku aadan nabadda iyo xasiloonida gobolka iyagoo shaaciyay in ay diyaar u yihiin wada hadal iyo xal nabadeed oo waara waxayna fariin toos u direen xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo ku booriyay doorka muuqda ay ka qaateen dadaalada nabadeynta lana horumariyo wada hadal dhaba oo lagu dhameeyo xaaladihii nabadgelyo ee muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa deegaanadaasi. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan maanta joognaa waa Gaarisa. halkan labadii maalmood ugu dambeysay beesha Ciise shir baa uga socday wada tashiya oo lagaga hadlayo colaadda ka taagan gobolka galbeedka. halkaa wada tashi badan waxaan isla garanay reerku isla qaatay inuu nabadda qaato. wafdi dowladda ka socdana waa loo yimi wasiiraa waxaanu isla qaadanay inaan nabaddii qaadanno hadalka murtidiisa. xukuumadda iyo dhaqanka Somaliland waxaan u sheegaynaa halkaa maanta aanu ku caddaynaynaa inaan annagu nabad qaadanay roolkii ay xukuumadda ku lahayd ay qaadato. bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa muxamed alxamdulillaah ilaahay baa marka hore mahadlay saakayntayadani caafimaad qabta nabad iskugu keenay ilaahay baan mahad u celinaynaa. marka labaad shirka yagan Jaraa'iil maanta ma badna waxa keliya oon ummadda u sheegaynaa oo dowladda u sheegaynaa oo Somaliland u sheegaynaa dhammaanteed halkan annaga waxaa noogu yimi waftidii dowladda ka socotay nabadda raadinaysay baa noo timid. waxaanu Somaliland dhammaanteed ba u sheegaynaa 5 goor baan sheegnay mala hadalka yagu dadku wuu rumaysan lahayo idaaqiraadahay inaanu qaadnay nabaddii dalka waan qaadanay annagu nabadda diyaar baanu nahay. nabadda waan qaadanay diyaar baanu nahay waan jecel lahay nabad baan haynaa nabad baan qaadanay nabaddaan diyaar u nahay nabadda waan xoojinaynaa. shirkaygan Jaraa'iil sida ay odayaduba ka soo dhawaajeen waa kulankii dowladda iyo beesha iyo murihii ka dhashay. annagu horeba sidii ay dowladdu nooga barateen u dhawaaqi jirnay maanaan bedelin. dad meel tagay oo ku duulay horeba umaanaan ahayn. dad waxaanu ahay halkii ay joogeen ku nabad lahaa baan ahayn lagu soo duulayey ku dhibaatoonay baanu ahayn. horeba umaanaan ahayn cid meel u marta oo duusha markii hore. cid kastoo noo timaadana waan la qaadanaynay nabadgelyada iyo wanaagga iyo walaalnimada waan la qaadanaynay oo dowladdu ku ka tahay. maantana waddadaan mari jirnay baanu marnay maanaan bedelin. waa Salebaan Cawaala Daahir warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Saylac. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu kormeer ku tagay isbitaalka kala beer ee gobolka Gabiley.
wafdi baladhan oo hogaaminaya agaasimaha guri wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Axmed Maxamuud Jaamac Axmed Saki oo ay weheliyaan agaasimaha isbitaalada soo kala agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda horumarinta caafimaadka isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gabriel Axmed Budul ayaa maanta gaaray isbitaalka Kalabaydh oo maalmihii ugu dambeysay ay tabasho ka soo yeedhisay qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalkaasi waxaana agaasimaha guri wafdigiisu ay kulan la qaateen agaasimaha isbitaalka iyo sidoo kale shaqaalaweynaha isbitaalka waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray in meesha laga saaro khilaafka u dhaxeeya shaqaalaha iyo agaasimaha isbitaalka waxaana kulankaasi uu agaasimaha guri wafdigiisu la yeesheen shaqaalaha isbitaalkuna uu ku dhammaaday kulan isafgarasho iyo in agaasimaha isbitaalka iyo sidoo kale shaqaaluhuna ay wada shaqeeyaan qalbi furnaana qaalaweynaha isbitaalka Kalabaydh raaligelin ka bixiyey hadal ay hore miidiyaha u mariyeen walaal waxaan idinku darmaayeen waxa weeyaan wixii khilaaf odaytinimada ha noqoto xataa wasaaradda lafteedu mar aanidan gaari karin baa jirta mar khilaaf qof taagan yahay baa jirto la qaban karo inagu dad walaalaa aynu dhexdan isqaban agaasimuhu waa walaalkeen waa inala mid idigu walaalaha baatiin hooyooyinkii baatiin hablaha iyaga baatiin maalintay laba qof isku dhacaan inaga dhameyn karo khilaaf baa horta ka jiray isbitaalka Kalabaydh khilaafkaasna waxa dhameeyay agaasimihii guud oo ag fadhiya uu ku mahadsan yahay madsanta agaasimi wixii kala dhibsaday hadalkaygana marka hore calaad naga keentay waa ku mahadsan yahay maadaama uu dhameeyay yaa imkaan aad buu mahadsan yahay madsantay agaasimadna yaa dhamaatay dhamaatay waan cid kastoo raaligelintaan waxaan ka codsanayaa waa in raaligelintaas waan raaligelinaa agaasimaha guud iyo cid kastoo dhibsatay Soomaaliland isbitaalka shaqadiisuna sidii baa soo soconaysaa insha Allah hadii la helo doonku dambeeyay isbitaalka xoogaa waxa jiray khilaaf aniga shaqaalaha soo kala dhex galay oo ahayd hawl technical oo ahayd shaqada iyo qaabka u soconayso hawshiina dee saxaafad bay gaadhay markii dib wasaaradda gaadhay agaasimaha guud ayaa hawshii soo dhex galay agaasimaha isbitaalada iyo aysan qorsheynta hawshii saaka xagga lagu dhameeyay anaga shaqaalaheena waxaan isku ognahay maanta wixii ka dambeysay wada shaqeyn iyo in qof walba isku laab xanaado intaasna ku soo gabagabeynaya dad ba ka shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya hadii shaqaalaha iyo maamulka ama isbitaalka ay wax iska bedelaan markaa waxay saameynaysaa bulshadii iyo dadkii deey waxa weeyaan isbitaalka ka adeeganayay ay saameynaysaa ilaahay fildigiya in hawshaas soo gabagabowday laga bilaabo maanta isbitaalkii maamulkii iyo shaqaalihii aynu ku ognahay waxa weeyaan wada shaqeyn qalbi furnaan maalin dhaweyd oo dhowr cisho ka hor waxa naga baxay warkaas oo oranaya in khilaaf baan ka taagan yahay isbitaalka Kalabaydh isbitaalka Kalabaydh wuxuu ka mid yahay isbitaalada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaala wuxuu ka mid yahay isbitaalada u adeega bulshada wuxuu ka mid yahay isbitaalada ay gacanta ku hayso wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda horumarinta caafimaadka maamusha maamulkeedii shaqaalaheedaba taas horta waan cadeynaya khilaafku meel shaqo taalun buu ka yimaadaa maanta waxaan cadeynayaa in uu dhamaaday khilaafkii tiimkii shaqaalaha ahaa ee cabashada qabay waxay ku cabariyeen waa la eegay wixii sax ah waa la aqbalay wixii aan sax ahayn waa loo sheegay inaan sax ahayn wayna qaateen maamulka isbitaalka halkan joogay agaasimo ugu horeeyana isagana markii la dhageystay wixii loo arkayay inuu ku saxan yahay waxa la yiraahdo waad ku saxan tahay wixii kalena waa loo sheegay taas waxay keentay in labadii agaasimaha ee isbitaalka ay wada shaqeyntoodii ay noqonayso mid sidii la rabay midna waan cadeynayaa shaqaalina way hor fadhiyaan midaan cadeynaya waxa weeye isbitaalka waxa maamula agaasimaha cid aan agaasimaha ahayn oo isbitaalka maamusha ma jirto qofka shaqada agaasimaha qabanaya xaq uma laha inuu qabto shaqada agaasimaha loo igmaday waqtigii loogu talagalay buu joogayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala intuu u qadaray buu taagnaanayaa isaga maamulka isbitaalka leh aynu ku ixtiraamno kaga dambayno agaasimahana waxaanu faraynaa oo isagana u sheegaynaa agaasima shaqaalahan waa shaqaalahaagii waa shaqaalaha agaasimaha ku tahay waxa lagaaga baahaya cadaalad isbarbartaag iyo insha Allah inaad maxaa la yiraahdaa u sameeyso cadaalad gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa kulan la qaatay shaqaalaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa kormeer ku tagay wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka oo ka mid ah wasaaradaha muddooyinkii u dambeeyay isbeddelka shaqo iyo ka bilicda xarunta si weyn loo majeeranayay isbeddelka ku yimid iyadoona wasaaradda uu ku soo dhaweeyay isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer Mustafa Maxamed Ismaaciil Mustafa Laambad barasaabka ayaa kulan la qaatay shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer kulankaasi ayaa
ayaa diiradda lagu saarayay ku baraarujinta shaqaalaha, dardargelinta shaqada qaranka, ilaalinta xogta dowladda iyo ka fogaanshaha wax kastoo lid ku ah nidaamka dowladeed iyo shuruucda dalka, iyadoona barasaabka gobolka Togdheer ku bogaadiyey isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka isbeddelka bilicda ee wasaaradda uu ku sameeyey muddadii uu joogay oo dayac badan ka muuqday, isagoona ku booriyey in dadaalka shaqo halkaa laga sii wado. isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer ayaa ugu horreynba halkaasi ka hadlay. gudoomiye kusoo dhawow xafiiskii wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee gobolka Togdheer oo ah xafiisyada gobolka Togdheer ugu shaqada badan una qaabilsan gobolka inuu adeegyada biyaha ee gobolka mas'uuliyadooda qaabilsan. shaqaalaha xafiisku waa shaqaale u heegana mar walba wacyiga taagan iyo shaqadooda inay gutaan. mar walba waxaan joogay side ceel laga shaqaynayo gobolka Togdheerna saad ogtahay ceelasha dhaadheer ee Soomaaliland ugu dhaadheer baa ku yaala. waxa laga yaabaa iyadoo booyadii kuwii ku jiraan xoolihiina taagan yihiin in cilad yar oo mashiinka ku timi ay dadkiiba biyo u waayaan oo joojiyaan. marka waxaanu ka hawlgalnay inaan isu qaybinay in shaqaalaha waxda farsamadu ay isu qaybiyaan meeshii qayladhaani ka soo yeedhaba group marka qayladhaanta soo aamusiyo oo soo dayactira loo diro. ilaahay wuu nagu guuleeyey intii biidhaan ku socday waxaa ku yaala burcad 13 ceel oo dibadda ah. waxaa naga aan shaqaynin inuu hal ceel oo ah qoryaale inta kale mid naga fadhiistay ma jirto. ka fadhiistay waxaanu kaga jawaabaynay maalmo gudahood. marka waqtiga adag waa ka soo baxnay. gudoomiye kusoo dhawaad xafiiska wasaaradda biyaha waan kugu bogaadinaa booqashadaada soo booqatay waana dhiirigelin xagga shaqaalaha ah. waxaanaanu codsanaynaa in dhowr 3 biloodba mar la sameeyo kormeerka wasaaradaha oo dib la soo update gareeyo la isku xidhmo. waxaanu ballan qaadinaa inaan ka xafiiska gobol ahaan iyo xafiiska amniga ee bilayska wasaaradaha inaan la shaqayn doono wixii soo kordha, wixii nabadgelyo darro keenaya, wixii shaqo xumo keenaya, wixii shaqo wanaagsan wada in kastaba wada qofku inaan xiriir la yeelan doono gobolka. horena aanu lagu shaqayn jiray oo halka aanu ka duulno oo report shaqo aan u baxayna oo aanan riboodkeeda gobolka geynin ama markay soo dhamaato aanan riboodkeeda geynin aanan jirin. barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa dhankiisa la hadlay shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer. horumarkan wuxuu ka dambeeyaa guddida nabadgelyada iyo isuduwayaasha oo wada gaadhay. weeyad siyaasadda kaliya naga saari karta waa inay heshaa guddi loo diro oo iyaga hadhowto ninba wadanihiisa iska qabsado. waynu naqaanaa reer miyiga ay dayacmaan dabeedna dhaamkii u dayacmo. aqoonta aynu u baahannahay waa biyaha idinkaa injineer oo ah. marka waxa weeyaan inaynu biyaha sare qabsano. anugu inta badan weliba markay hawdka tahay waxaan aaminsanahay in dhaamamaynu sarayso. dowladdiina aqoonsatay oo inaynu soo dhaweyno oo aynu rajaynayno dee tababaradii ugu horreysay biyaha noloshii ayay inooga bilaabeen. kolley idinaydii ragga ka faa'iidaysanaya noqotaan oo aqoontaa biyuhu aada iyo aad bay runtii inoogu yar tahay. si aynu uga baxno hadday tahay kuwa nafteena loo cabayo, kuwa xoolaheenu cabayaan iyo kuwa deegaankeenaba sidii aynu u joojin lahayn. dadweynaha reer Burco waxaan farayaa wadooyinkan gaadiidka faraha badan leh uu ku sameeyey miyi dee laanta ay u lulayeen ama geedkay u garaacayeen xoolaha shalay inay wadooyinkaas dhigaan si ay biyaha bali haddaanaynu wax kala qabsan karayno inay biyihii hakad inoo galaan. qof waliba hadduu hal dhagax dhigo wadooyinkaasi biyaha jaray ama dooxyaa ka wada samaysmay hawdkii waqooyiga meel kastaa tagto imika dooxya gaadiidka ka sameeyeen. marka dooxyada wax lagaga hortagi karayaa wax yar oo fudud inagoo wax dabadii nooga yimi baan ka sugaynin. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, telefishinka qaranka Somaliland, Burco. guddida dubadhiska suuqa Waaheen iyo agaasimaha guud ee baanka ayaa kormeeray suuqaasi Waaheen. xubnaha guddida heer qaran ee suuqa Waaheen iyo agaasimaha guud ee baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta ka qayb galay kulankii saddexaad ee bilaha ee mashruuca dibadhiska suuqa Waaheen. waxaana si wada jir ah u kormeereen halka uu marayo mashruuca dhismaha suuqa bacadlaha, saribada hilibka iyo khudaarta ee qaybta dowladda hoose ee Hargeysa leedahay. kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu hubinayo tayada iyo hanaanka uu u socdo dibadhiska suuqaasi muhiimka ah ee Waaheen. intii uu kormeerku socday, mas'uuliyiintu waxay si dhow u indheeyeen marxaladaha kala duwan ee uu marayo mashruuca dhismaha, iyagoo warbixino faahfaahsan ka dhageystay halwadeennada iyo injineerada shirkadaha ee gacanta ku haya dhismahaasi. sidoo kale waxa ay xog waraysi iyo falaqayn ku sameeyeen sida ay howluhu u socdaan, caqabadaha jira, qorshayaasha horumarineed ee lagu casriyeynayo suuqa. agaasimaha guud ee baanka dhexe iyo guddida heer qaran ee dibadhiska suuqa Waaheen ayaa
shirkadaha fulinaya dhismaha ku bogaadiyey dadaalka ay muujiyeen islamarkaana ku dhiirigeliyey inay sii xoojiyaan shaqada si mashruucu ugu dhammaado wakhtigiisa loona helo suuqa casri ah oo waafaqsan heerarka ganacsiga ee magaalooyinka waaweyn. waxaa kaloo ay mas-uuliyiintu ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dejiyo shaqada islamarkaana la ilaaliyo tayada dhismaha maadaama suuqa waahen uu yahay lafdhabarta ganacsiga caasimadda Somaliland ee Hargeysa iyo guud ahaan dalkaba. ugu dambeyntii dhinacyada ay arrintani khusayso ayaa ku heshiiyey in la sameeyo kormeer labaad oo lagu qiimeeyo horumarka mashruuca kaasi oo la qorsheeyey bisha 12aad. Cabdiqaadir Sako, TV-ga qaranka, Hargeysa. hay-adda wadaniga ah magaceeda la yiraahdo SYS ayaa waxay daafurtay mashruuc dhalinyarada looga taageerayo waxbarashada dhanka jaamacadaha. hay-adda wadaniga ah ee SWS iyo jaamacadda Shifa Burco ayaa kala saxeexday mashruuca mustaqbalka project kaasi oo lagu horumarin doono waxbarashada bulshada oo ay hay-addaasi ka bixin doonto 20 arday kuwaasi oo si free ah ku dhigan doona waxbarashada jaamacadda gaar ahaan ICT-ga. agaasimaha hay-adda wadaniga ah ee SWS Maxamed Aadan ayaa ka hadlay ugu horreyn deeqdaasi waxbarasho ee ay ku horumarinayaan waxbarashada bulshada gobolka Togdheer iyadoona dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Shifa University Burco Abdiraxmaan Cali Axmed sida ay ka jaamacad ahaan markasta ugu heelayihiin horumarinta arrimaha danta guud ee bulshada isagoona sheegay in ay ardayda uga faa'iideyn doonaan aqoonta jaamacadda lagu majeerto. mashruuca waxbarasho mustaqbalkaab ayuu qayb ka yahay deeqda waxbarasho iyo wada shaqayntaanu maxay maanta bilaabayno jaamacadda Shifa. runtii dhalinyaradu waa lafdhabartii bulshada marka dhinac walba in laga caawiyo ayay u baahan yihiin. runtii marka waxaan garanay in muxuu ahaa cilmiga ICT-ga oo aanu aragnay in maxay baahi loo qabo in 20 arday aanu siino taageero jaamacadda Shifana ay maxay fuliso oo ay bixiso ardaydii 20 arday heerkooduna digriga yahay oo bilaabmi doona 4 bisha. runtii ogeysiiska aanu maanta sameynayno waxaan rajeynaynaa in ardayda xiiseynaysa magaalada Burco inay soo codsan doonaan marka ay codsigu xidhmo guddi ka kooban jaamacadda iyo hay-adda ayaa maxay isku iman doona fariisan doona codsiyadii la soo gudbiyay kala saari doona ardaydana inta la soo xulo interview-ga iyagana sidoo kale maxay kooban la marin doona 20 arday ee IT-ga baranaya heerkooduna uu yahay digriga waxa u fulinaya jaamacadda Shifa. aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda wadaniga ah SWS oo gobolka Togdheer iyo guud ahaan Somalilandba muddo badan bulshadeeda caawinaysay garatayna inay waxa weeye horumarka bulshadeeda ay ka shaqayso. bisha afraad 15keeda oo ku beegan Arbaca ardayda loo baahan yahay shuruudaha ku xiran waxaa ka mid ah inuu ardaygu yahay arday dhowaan ka baxay dugsiga sare waliba waxa weeye 2 sano ugu dambeeyay inuu haysto shahaadada dugsiga sare iyo warqad cadeynaysa inuu dhameeyay inuu ardaygu keeno nuqul ka mid ah shahaadada iyo natiijada imtixaanaadka inuu ardaygaas leeyahay anshax wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan warqad cadeyn ka soo qaatay dugsigiisa inuu diyaar u yahay inuu si joogto ah u dhigto waxbarashada. sidoo kale ardayga waxa looga baahan yahay inuu codsi u soo qorto inuu soo qaato 2 sawir oo kur ah ama kuwa baasaboorka ah. shuruudahaas ayaa ardayga looga baahan yahay. jaamacadda Shifa waa hay'ad waxbarasho oo u taagan horumarinta aqoonta xirfadaha iyo anshaxa ardayda. waa jaamacad ku dhisan tayo hufnaan iyo hal abuur.
jaamacaddu waxay si joogto ah ay u soo saartaa arday leh aqoon qoto dheer iyo xirfad iyo karti leh kuwaas loo jaan qaadi kara baahiyaha kala duwan ee ka taagan suuqa shaqada ama ha noqoto waddanka gudihiisa ama ha noqoto waddanka dibaddiisa. mashruuca mustaqbalkaab ayaa ah isagu mid lagu horumarin doono waxbarashada bulshada gaar ahaana ICT-ga iyadoona hay-adda SWS ay ka bixin doonto 20 arday kuwaasi oo si firi ah ku dhigan doono waxbarashada jaamacadda. Bilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, telefishinka qaranka Somaliland, Burco. waa hagaag daawadayaal intaasi waxaa ku guud ahaanba warkii aanu idinku talagalnay duhurnimadan maanta. warkan iyo wararka kale kusoo kordhaba waxaad ku daawan doontaan baahinteeda soo socota. aniga iyo bahda iyo barbaartii telefishinka qaranka Somaliland isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.